السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي ملكستا جوجتان أخواتي كسو دوادا channel كينا سومالي شيف. maanta waxaan rabaa inaan kariyo alaabtaan ujeedaan waxa waaye breezer oo vegetable rice iyo chickenkaas iyo sauce-kaas ujeedaan korka aan uga shubayo waa alaab yar oo simple ah very tasty na ah insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan karinteedana wax waqtiga kaama cunayso very easy waaye insha Allah haddana ila arka saan u kariyay waxay ka kooban tahay waxaan ka sameeyay daawasho wacan digsigan waxaan ku shubayaa saliid kuma wada shubay intaas oo dhan qaar meel ayaan dhiganaa wax kale ayaan rabaa inaan ku sameeyo waa isla arki doonaa basal ayaan ku daray saliidii basasha waan soo jarjaray si yar yar waliba intaas ayaan hadda isku walaaqayaa waxaan rabaa basasha xoogaa yar inay bislaato ma guduudinayo laakiin ma rabi basal guduudan halkan waxa iigu jiro aan rabaa inaan ku daro waa toon aan soo xoqay waxaan kaloon ku darayaa sanjabiil ayadana aan soo xoqay halkaana waxa iigu jirta waa huruud ayadana aan soo xoqay saddexdaas iyo basashii ayaan haddana isku walaaqayaa wax aan guduudinayo ma lahan ma rabin inay iga guduutaan bariiska kalar iga yeelaan finally waxaan hadda ku darayaa ayadana kaarootada waa kaarooto aan soo jarjaray soo yaryareeyay waxaan kaloon ku darayaa halkan French beans ayaa la dhahaa bahashan waa beanska dheedheer oo aan jarjaray waxaan kaloon ku darayaa oo halkan igu jira asagana baby corn waxa waaye waa sabuul yar yar ma aha sabuulka waaweyn yar yarka waay dhaqsana uu bislaadaa baby corn-ki ayaan ku darayaa hadda intaas ayaa isku walaaqayaa dabku waa ii gaaban yahay waa ii daciif ma rabi dab dheer dabka badan wuu iga gubayaa qudaartuna inay ii bislaataan rabaa si aayar iigu bislaato dabka haddaan ka badiyo oon dab badan ku shido way iga gubanaysaa iimana bislaanayso waa taasaa qudaartii maasha Allah colorful waaye mix waaye qudaaro kale oo ka maqan way jiraan laakiin hadda intaasaa isticmaalaa waxaan ku darayaa hal qaado yar cusbo qaado yar haafkeed oo filfil ah intaas ayaa hadda isku walaaqayaa waa mix gareynayaa saa hore idinku sheegayna dabku waa gaaban yahay inaan huuriyo ayaan rabaa way ii huursantay maasha Allah waa ina ii bislaatay qudaartii hadda waxaan rabaa inaan ku daro barbarooniga jaalaha ah oo asagana si yar yar u soo jarjaray barbarooniga cagaarka aan si yar yar u jaray barbarooniga guduudka ah oo asagana si yar yar u jaray intaas ayaan markale isku walaaqa qofkii aan haynin waxaan oo barbarooniga guduudka cagaarka ka haysid ku dari kartaa qudaartana nooca rabta isticmaale halkan waxa igu jira waa breeze aan biyo cad iyo cusbo ku soo kariyay zaidna uma bisla 90% waaye wax yar ayaa ka dhiman huuriska ah aan qudaartaas ku huurinayo asagii qudaarta had si fiican isku dhexgelinaya waan isku mix gareynaa aad ayaan isku walaaqa ilaa ay si fiican iskaga dhexgalaan qudaarta iyo bariiska kana waan soo dhameeyay mix gareyskii waa isku kay dhexgaleen maasha Allah qudaartii bariiskii very colorful qurux ayuu iigu soo baxay haddana waan huurinayaa daboolan saarayaa waan huurinayaa xoogaa ayaan kaamirada u soo dhaweynaa inaad aragtaan ayaan rabaa si colorful ugu soo baxay waa color dhammaystiran qudaar oo dhanna way ku jirtaa maasha Allah hadda intuu ii huuray bariiskan waxaan rabaa inaan sii diyaarsado chickenka baaquligan waxaan ku shubanayaa oregano saa hore idinku sheegayba waxa waaye dhir la qalajiyay sida kabsarta iyo camal waaye oo la shiiday intana parsley waaye ayadana waa sidoo kale waa la qalajiyay waa la shiiday halkan waxa igu jira coriander waa kabsar ayadana la qalajiyay kulli hal qaado oo yar ayaan ka isticmaalay qaadada shaaha midda yar hal qaado yar ayadana oo cusbo ah halkan waxa igu jira waa huruud xoqan waxaan kaloon ku darayaa sanjabiil la xoqay ayadana waxaan kaloon ku darayaa toon la xoqay rosemary hal qaado yar inta waxa igu jira finiga ama khal
khalkaas ayaan ku darayaa, kamana badinaay, wax yar ayaan ku darayaa. intaan ayaan hadda isku dhex walaaqayaa. Aan rabaa inay si fiican iskugu kala dhex galaan. Saliid ayaa ka dhiman aan ku darayaa. waatana saliidii waa 2 qaado camal, ma badna maadaama aan doorada saliid ku shiilaayo. intaas ayaan isku mix garaynayaa mar kale. diyaar waa spiceski. haddana waxaan rabaa inaan chickenka ku guro. chickenka adiga qiyaaskii aad rabtid ayaad u karinaysaa xaafadaada, familkaaga intuu yahay chickenkii spiceski hadda ismarinayaa. si fiican ayaan rabaa inaan isku dhex geliyo oon chickenka spiceska meel kasta uu ka gaaro. meel ayaan dhigayaa 1 saac ama 30 daqiiqo suu igu marinate garoobo. inta xagga ii taalo chickenka waxaan sii diyaarsanayaa sooska. sooska wuxuu ka kooban yahay qumbo, caanihiis, coconut milk. waxaan kaloo ku darayaa peanut butter. peanut butter waxa waaye lowska rootiga la marsado oo kombooyinka ku jira ready-ga ah. peanut butter waaye. peanut buttergii iyo coconut milkigii ayaan isku karkarinayaa. waxaan rabaa inay isku dhex galaan oo isku dhalaalaan. markaan stage-ka koowaad waaye uu waaweyn yahay. dabka markuu helo asaa ayr u dhalaala. stage-kii labaadna waa kana, waa ujeedaan sidii hore wuu ka yaryar yahay. wuxuu bilaabay inuu dhalaalo peanut butterga. damo uu dabka saaran yahay damo uu dhalaalayo. dabkana waa gaaban yahay, dab badan ma aha, dab badan waa kaa gubanaysaa. hana ka tagin walaaqa ugu dadaal inta uu ka noqonayo smooth ama uu ka dhalaala. stage-kii ugu dambeeyaan hadda marayaa, finalkii. wax yaroo burtuq uu leeyahay laakiin dhib ma lahan. dabka inta uu saaran yahay ayuu iskaga dhalaalayaa. waxaan ku darayaa 1 qaado yar halfkeed oo cusbo ah, 1 qaado weyn oo sokor ah. intaas ayaan hadda ku walaaqayaa. sooskan chickenka ayaan rabaa inaan u isticmaalo. bariiska waa lagu cuni karaa, chickenkana waa lagu shubayaa korkeeda, waa isla arki doonaa. waan soo dhaweeyay kaamarada inay la aragtaan ayaan rabaa. suu ku soo baxay dabku zaaid ayuu ugu gaaban yahay. waa kaasa, waa soos is haysta maasha Allah. qumbihii, caraftiisii iyo peanut butterkii. haddana waxaan rabaa inaan guda galo chickenkiisa u shiili lahaa. chickenka kuma shiilaayo saliid badan oo aan dhex gelinayo. wax yar ayaan rabaa inaan ku shiilo. waa ila arki doontaan saa u sameeyo. chickenkii ayaan ku gurayaa hadda. haddaa rabtid chickenka waad shiili kartaa oo saliid badan ayaad dhex gelin kartaa sida loo shiilo caadiga ah. haddaa rabtidna ovenka ayaad gelin kartaa. dhinacan hoose ayaan dabka u daynaa marka hore. waxaan rabaa inuu si fiican uga bislaado. dabkuna waa daciif, waa gaaban yahay, zaaid ma ahan, wuu gaaban yahay. dhinacii hoose waa ii bislaaday, waan rogayaa. dhinacii koraan hoos marinayaa. dabka haddaan zaaid ka dhigo oo aan ku badiyo way gubanaysaa, dhexdiina ma bislaanayso. marka dab yaroo waxaa la rabaa ay ayar ugu bislaato. waxaan hadda sameynayaa kuwii geesaha xigay ayaan dhexda soo gelinayaa, kuwii dhexdana geesaha, because geesaha dabsa u badanaa ma lahan, dhexda ayaa ka dab badan. marka chickenka meel kasta inuu dabka helo ayaan rabaa. ready waaye hadda chickenkii, sooskii, brieskii. haddana waxaan rabaa inaan idin tuso sidii aan u saaf gareeyay ama saxankaan u saaray iyo say noogu soo baxday cuntada. waatana cuntadii saan ayay kusoo baxday. brieskii waad ujeedaan, chickenkii waa ujeedaan. chickenka hadda waxaan ku subayaa waa sooskii aan soo kariyey oo coconut, caanihii milkiga ahaa, coconut milki iyo peanut butterkii, sooskoodii aan soo karinayay ayaan chickenka ku shubaa. sooska even waxaad samayn kartaa markii aad briiska saxan ku guratid, gees ayaad ka saaran kartaa. very tasty, macaan ayuu kugu soo baxayaa. waxaan filayaa inaad ka hesheen akhwaati meel kasta aad joogtaan. waa cunto yar oo simple ah oo healthy ah, karinteeduna waqti kaama qaadanayso. chickenkii waa ka, brieskii waa kaasa, wax yaroo cabbage-na geeska ayaan ka saaray. salad nooca rabtid ayaa u samaysan kartaa. daawasho wacan akhwaati. haddaa ka hesheen like ta saar, haddaa channelka ku cusub tahay subscribe.
meel kasta aad joogtaan Ramadaan Kariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.